cawaale aadan iyo daahir cali sow oo ay ka geertay halkii ugu xumayd. cawaale aadan oo hanjabaad u diray daahir cali sow oo ku goodiyey in la weyn doono heesaha cawaale aadan. Mrs Xiis oo Muqdisho kula aqalgalaysa Abdi Xabiibi Bro Makis, rag caan ah oo la kala saftay labada nin. Soo dhawaada saaxiibayaal, inta aynu u guda gelin xanta maanta ee xogaha daasoon ee Soomaalida dhexdeeda ah, fadlan waxaan ka codsanayaa inaad sii share garayso muuqaalkan, like iyo followna aad dhac ku siiso page-kan. Mahadsanid. Aan u guda galno xaaladaha ka dhex ololsan Abdi Xabiibi Bro Makis, Daahir Cali Sow iyo fanaan cawaale aadan. daahir cali sow oo magaalada Muqdisho ku sugan ayaa darfaha iminka ku dhagan fanaanka Soomaalida dhexdeeda caanka ka ah ee cawaale aadankaas oo la sheegay inuu ka furtay gabadhii uu qabay, sidoo kalena uu hagardaameynayo. Abdi Xabiibi Bro Makis oo aan ka dhammaan dagaalada uu la gala dadka caanka ah ayaa markan ku goodinaya inuu meel walba oo baraha bulshada ah uu ka saari doono heesaha cawaale aadan, isla markaana uu baabi'in doono xusuus walba oo cawaale ka turjumaysa. cawaale xilligan waxa uu marayaa meeshii ugu xumayd kadib dagaalka uu la galay feeryahanka weyn ee Daahir Cali Sow. Mrs Xiis oo horey ugu dhaxday fanaanka caanka ah ee cawaale aadan ayaa iminka xeebaha Muqdisho kula damaashaadaysa Abdi Xabiibi Bro Makis, Daahir Cali Sow. codad sir ah oo la helay ayaa caddaynaya cawaale aadan oo canaacalaya, isla markaana Daahir Cali Sow ka codsanaya cafis. walaalow daahir cali sow waxaan kaa codsanayaa walaalkaygiiyow, rag way dagaalamaan, way heshiiyaan, in dagaalkeena meeshaas aad ku soo afmeerto, meeshaas uu ku soo dhammaado. waxa weeye rag isdagaalay way heshiiyaan, kulley dumar ma nihin maalin weliba in aan meel isu soo fariisano nascaynana dee ragga xerkiisu ma aha. waa arrin kale oo la yaab leh. Shiina Culay ayaa isna taajka Abdi Xabiibi Bro Makis u guntay Daahir Cali Sow, balse waxaa la soo warinayaa in Shiina Culay iminka uu dagaalka dhexda ka galay, isla mar ahaantaana uu la saftay cawaale aadan. Middan dad badan ma oga, balse xuraan aynu helnay ayaa xaqiijinaya in Shiina Culay uu Daahir Cali Sow ugu baaqay heshiis, daahirna uu ka biyo diday Shiine, isaga oo Shiine sheegay in Daahir Cali Sow haddii uu sii wado weerarada cawaale ka dhanka ah inuu isna soo garbaashi doono Daahir Cali Sow. xaaladda ayaa iminka faraha ka sii baxaysa, lama oga halka xarig ku dambayn doono, balse waxaanu sugnaa xogaha dahsoon ee soo ifbixi doona maalmaha soo aadan. ee daawade laagsaar muuqaalkan kuna soo bir saaxiibada page-kan xogaha dahsoon ku xiran. mahadsanid.